inaan joffer ka sameyno waxaan ugu dhaliyay waxay ahayd anaga oo aan u baahnay dad oo quality leh inay noo shaqeeyaan as fursad fan ahaan meelo badan baan wax ka raadinay meel platform ama madal ma jirto oo CV database leh oo dad dhalinyaro oo fiican aad ka soo soocan kartid so magaaladana markaan galay aan asxaabteeda oo ganacsatada leh markaan la sheekaysanay iyagana isku wixii bay dhahayeen war niyow mar kastaba waxaan ku xiranahay qof kale ama qof oo in adeerka ama qof oo juf ah in shaqo la siiyaba saas bay systemkaas baa jiray so saas baan u sameynay platformkan sida la iskugu keeno ganacsatada iyo shaqo doonada aniga waxaan ahay mid kamid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho gaar ahaan waxaan dhigtaa jaamacadda Simad waxaan ahay semesterkii 7aad ahay waxaan bartaa program loo yaqaan Banking and Finance marka maadaama wadankeena inta badan ay iska yar tahay in fursadaha shaqada ardayda inta badan ay helaan waxaan go'aansaday inaan raadiyo macnaha internship maadaama meeshan shirkado fara badan oo waliba xataa filliga aniga hadda aan baranaan qusay sida Dahabshiil Bank iyo Premier Bank ay joogan macnaha hadafku weyn u maad xitaa inaan internship aan helo kadibna talentiga iyo kartida awood aan leeyahay shaqada oo soo bandhigay kadibna haddii shaqo iyo waxyaabo kale aan guuleysano meesha aan guuleysto barnaamijkan waxa uu maaday dabcan waa barnaamijkii ugu weyn ugu horeeyay yani aan maqlay inaan ka faa'iideysto fursadan oo dabcan waxaan kamid ah ardayda sanadkan ka soo qalin jabisay jaamacadka magaalada ani muslim ahaantay horta laba baajaan wata baaj oo veterinary ah iyo baaj kale oo business administration ah Soomaanta hadafkayga labadaba inaan ka wada faa'iideystaan waa nasiibkayga yani inuu saacadaan dhalinyaro badan baa jira oo doonaya inay company furtaan companygaas dhalinyaradana inay company furtaan caqabadaha ka taagan waxa waaye dawladda policy ma jiro caqabadaha sida lagu xalin karo waxa waaye in la badiyo madashiyaashan oo job fair-ka ah carwo shaqadan anagana kuma ekeenayna hadda halkan Muqdisho job fair-ka ugu weyn aan ka qabanay waa hadda waxaan rajaynaynaa 3 kale inaan qabano oo goboladana aan ka qabano iyo magaalooyinka waaweyn wadanku yaalana inaan ka qabano